Asalaamu calaykum waraxmatullah. Kusoo dhawaada janalka Muqdishaawi. Haddii aad tahay qof ku cusub janalka, fadlan subscribe saar si anagan dhiirigelin noogu noqoto idinkana ay idiin soo gaaraan muuqaalada xiisaha leh ee aan soo gelin halkan. Maanta waxaan ka hadli doonaa habka loo isticmaalo Facebooka qayb ka mid ah. Sidaan ognahay, Facebooka waa aalad ka mid ah aaladaha loo isticmaalo social mediaha amba bulshada ay ku wada xiriirto. Waa midda ugu caansan, ugu hantida badan, waxyaabo badan oo faa'iidana way leedahay, waxyaabo badan oo khasaarana way leedahay, sida in waqtiga kaaga lumo amba mudnaanteeda waxyaabihii sida ay mudneed aadan u isticmaalin. Facebooka kolay muhiimadiisa koowaad ee awal loo sameeyo waxay ahayd communication, laakiin maanta wuxuu noqday meel lacag laga sameeyo, meel maxaa la yiraahdaa celebrity amba magac laga sameeyo ayuu noqday. waxyaabo badan oo faa'iido ayuu leeyahay, kolay khasaaradiisana wuu wataa, waa sayf duuxadeyn. hadduu ilaahay raali ka noqdo, waxaan samayn doonaa casharo badan oo tixana ah oo ku saabsan habka loo isticmaalo Facebooka. Kani wuxuu noqon doonaa casharkii ugu horreeyay ee aan soo gelino amba aan ugu talagalno casharadaasi tixana ah ee aan uga hadlayno isticmaalka Facebooka. casharka maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa habka loo bedesho passwordka. dad badan oo idinka mid ah waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan bedelashada passwordka wax weyn maahan oo waa wax qof walba uu aqoonsan karo. Marka haddii aad adiga taqaanid, waxaa jira dad badan oo aanan aqoonin. Okay, wejiga ugu horreeya Facebooka markaad kicisid oo maxaa la yiraahdaa aad gashid Facebook account-kaaga, waxaa kuu soo bixi doono qaybtan ugu horreysa. Then waxaad samayn doontaa meeshan ay saddexda line ku taalo ee calaamada search account maxaa la yiraahdaa icon-ka ka hooseedo yaad click siin doontaa oo saddexda line ay ku taalo. waxyaabo badan kuu soo bixi doono. waxaad ka dooran doontaa hoos ayaad u bixaysaa, waxaad ka dooran doontaa setting and privacy. waxaad ka sii galaysaa settings. Okay, waxaa kuu soo bixi doono tabkaas account settings. Okay, anaga markaa waxa aan rabno waa inaan bedelno passwordka. waxaan ka dooran doonaa qaybta security aan gali doonaa, waxaan ka sii galaynaa security and login. halkan marka waxaa kugu diyaarsan waxyaabo fara badan oo loogu talagalay amba ku saabsan maxaa la yiraahdaa passwordka. waxaan ka sii dooran doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo login. waxaa ka hooseeya marka sida hoos ku qoran change password. then click ayaan ku siinaynaa. saddex form ayaa soo baxday amba saddex meel oo leh yacni aqbaleeda in wax lagu qoro. tan koowaad waa current password. tan labaad waa new password. tan saddexaadna waa retype new password. marka taasoo micnaheeda tahay qaybta sare ee meeshaan hadda kaasarka uu ka boodboodayo waa inaad ku qortid passwordka hadda aad u isticmaashid Facebookkaaga. kanna waxaad samayn doontaa, waxaad gelinaysaa midka aad rabtid ee cusub hadda aad rabtid inaad ka dhigatid. kan saddexaadna sidoo kale waxaad ku celin doontaa retype new password. passwordka cusub ayaad ku celinaysaa. Okay, passwordka hadda anaga maxaa la yiraahdaa Facebookan hadda aan isticmaalayno passwordkiisa kolay waa account iska sample leh. waxaan samayn doonaa passwordkiisa waa CARAAY1952. okay, next ayaad leedahay. so hadda waxaan joogaa formkii qaybtii labaad ayaan joogaa. haddii aan back iraahdo, yacni meeshaan ayaan joogaa, wada furaha uu ku sawiran yahay waa new password gali. Okay, new passwordka marka waxaan ka dhigan doonaa CARAAY1952 ayuu ahaa, 3 ayaan ka dhigayaa. okay, waxaad doontaa aad ka dhigan kartaa markaa, laakiin mar walba waxaa wanaagsan markaad password samaysanaysid in ay iskugu jiraan number iyo xarfo caadi ah oo letters ah inay isugu jiraan ayaa wanaagsan. haddii aad symbol kusii dari kartid oo sida amba hash amba star amba wax aad ku dari kartid noocaas ah, waxaa wanaagsan inaad ku darsatid. okay, hadda marka passwordki waan bedelnay oo qaybtii labaad ayaan bedelay. marka waxaan ku qasbanahay inaan qaybta saddexaadna aan ku qoro midka aan hadda ka dhigo passwordka u dambeeyay. okay, password marka waxaan ka dhigay CARAAY
1953 waa koley micnaha 1 2 3 waa ka dhigi kartaa, laakiin waxaa wanaagsan in xarfo iyo isugu jiraan. xarfahaad soo hormarsan kartaa, nambarada hormarsan kartaa, wax mushkila ma lahan. waa isku dari kartaa, horaad mari kartaa, gadaalaad mari kartaa, dhexdaa geli kartaa, wax dhib ay leedahay ma lahan. Okay, dan ayaan leenahay. Dan waxaan samayn doonaa, waxaan leenahay update password. wuu load gareynayaa markuu wareegsado kabacdi passwordka wuu bedelmaya cala duul. Okay, continue ayaan leenahay. Please choose an options. marka meesha markuu keeno micnaha almost hadda wuu bedelmay passwordkii, wuu bedelmay password change the app meesha kusoo qanda sida arkaysid. marka wuxuu laba option uu ku siinaa, uu ku leeyahay account-kaaga oo Facebook aad ku leedahay, account meelaha Facebook mobilada amba computerada uu ka kacsanaay stay sii dheh, oo yacni ha kasii kacsanaado isagoo passwordkii la bedelay, weli ha kasii kacsanaado. amba inaad review aad ku samaysid oo midkii aad doontana aad xirtid, midkii aad rabtidna aad ka bixisid. marka review ayaan leeyahay. Continue. wuxuu ii soo saaray mobileka hal mobile inuu ka kacsan yahay. Okay, waa fiiri karaa mobile kala duwan ka kacsan yahay, laakiin ma jiro oo wuxuu ka kacsan yahay hal mobile oo kaliya, waana mobileka hadda aan isticmaalayo Galaxy A30s. Samsung Galaxy A30s Muqdisho ayaan ka isticmaalayaa. Okay, pack ayaan leeyahay. marka haddaa doonan waa xiri karaa. haddaa lock out hadda dhaho, lock out of all sessions waa dhigi karaa, laakiin haddii aan dhaho oo aan taabto yacni mobileka hadda koley halkaa mobile uu ka kacsan yahay, marka waxa aan log out u dhaho maba jira, ileen mobileka aan isticmaalayo kaliya waay. Okay, back ayaan leeyahay. marka waa saas ayuuna ku bedelan yahay passwordkeena. hadduu ilaah yiraahdo waxaan samayn doonaa casharada kalena waxay noqon doonaan cashirka kusoo xiga, oo kan ku xiga wuxuu noqon doonaa sida loo adkeeyo passwordka. aad iyo aad mahadsantihiin. mar labaad soo dhawaada. haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe saar, dadka asxaabtaadana la wadaag. mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullah.